dhul qadiimi ah oo taariikhdiisu ay gaarayso kumanaan sano waddan lahaa bilic iyo barwaaqo balse qof walba ma oga sheekada dhabta ah ee ka dhex guuxaysa qalbiyada shacabka Suudaan. Suudaan waa dalka saddexaad ee ugu ballaaran Afrika. waa dhul Ilaahay ku manaystay khayraad dabiici ah oo aan la soo koobi karin, shidaal, dahab, biyo, dhul beereed iyo bacrimin. waa isku xirka dhaqanada kala duwan ee Carabta iyo Afrika, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah meelaha ugu qanisan dhanka dhaqanka adduunka. si kastaba ha ahaatee, hodantinimadaasi waxay sidoo kale noqotay sababta ugu weyn ee colaadaha soo noqnoqday, kala qaybsanaanta qowmiyadaha, isku dhaca danaha dhaqaale iyo loolanka siyaasadeed ee awoodda ayaa abuuray dilaac qoto dheer oo ku yimid wadajirka bulshada. markii ay xornimada qaadatay sanadkii 1956 Suudaan waxay la kulantay caqabado waaweyn oo ah sidii ay u midayn lahayd qowmiyadaha kala duwan iyo danaha iska soo horjeeda. waxyar kadib waxaa bilowday dagaalo sokeeya, kuwaas oo salka ku hayay arrimo la xiriira diinta, aqoonsiga qowmiyadaha iyo kala qaybsiga khayraadka. dagaaladii ugu waaweynaa ee waagaas ayaa sababay in koonfurta Suudaan ay ugu dambayn go'do, ayadoo noqotay waddan madax bannaan. taasi waxay ahayd calaamad muujinaysa siday u adag tahay in la helo xal waara. waa iska sidan marka ay jiraan dana iska soo horjeeda oo aan la isku waafaqsanayn. sanadkii 2023 rajadii shacabka Suudaan ayaa si lama filaan ah u burburtay. midaasina waxaa sababtay isku dhaca labada dhinac ee ciidamada dalka.